bani aadamku hore waxay dhibaatooyin ugu qabeen wadista labada weji ee horay ama gadaal. haddii ay ku soo korodho kor iyo hoos waxay keeni kartaa shilal badan oo hawada ka dhaca. barnaamijkeena maanta waxaynu ku eegi doonaa Eurocars ama gawaadhida duula. waxaa Xaaji Mubaarak oo idin leh ku soo dhawaada Hanaqaad Media. baabuurta duulaya waxay awood u leeyihiin in ay adeegsadaan si nabadgelyo ahna uga dhex shaqeeyaan magaalooyinka waaweyn dhexdooda. nidaamyada kicinta ama degista waa kuwa aan samaynaynin buuq iyo guux badan. waxayna wataan nidaamyo amni oo ku wareegsan dhammaan dhaqdhaqaaqyadooda sida rotaries, mana aha kuwa wasakhaynaya hawada. haddaba si looga fogaado xirfad yaraan, kasmo ama khalkhal ku dhaca wadayaasha gawaadhida duula, arrinkaas oo keeni kara khasaare badan oo naf iyo maalba leh, baabuurtan ayaa loo nashqadeeyey kuwo iskood u madax bannaan oo iyagu iswada, halka dadkuna ay yihiin rakaab saaran gaadhiga. si kastaba ha ahaatee, baabuurka duulaya ayaa loo isticmaali karaa masaafooyin gaagaaban oo soo noqnoqosho badan, halka jawiga iyo xawaaruhuna uu yahay mid ka hooseeya diyaaradaha caadiga ah ee rakaabka. haddii aynu eegno taariikhdii uu soo maray gaadhiga duula, sanadkii 1936 Henry Ford wuxuu soo bandhigay gaadhi duulaya oo hal kursi leh oo tijaabo ah, laguna magacaabi jiray Skyflyer. nasiib darrase mashruucaasi uu istaagay 2 sano kadib markii tijaabo lagu sameynayay, iyadoo la wada daawanayo burbur iyo qarax uu sameeyey kuna dhintay duuliyihii tijaabada waday. laakiin fikradda gaadhiga duulaya ayaa heshay dareen saxaafadeed. wakhtigaas dadkuna waxay u riyaaqeen in ay heli doonaan wax soo saar diyaaradeed oo aad u jaban, in loo samayn doono, qof walina uu iibsan doono diyaarad yar oo uu u adeegsado howl maalmeedkiisa. 1940kii Henry Ford waxaa laga qoray weedhiisii caanka noqotay ee uu sheegay, calaamadso ereygayga, isku dhafka diyaarad iyo gaadhi way imanaysaa, waad igu qosli kartaa laakiin way imanaysaa. sanadkii 1942 ciidamada qalabka sida ee midowga Soviet waxay ku tijaabiyeen taangiga duula Antonov A40. mashruucaasina muu suurtogelin. 1946 Maraykanka ayaa soo bandhigay Falto FA2 amphibian. tijaabooyin badan ka bacdi Charles Lindbergh uu duulay 1950kii, laakiin maalgelin la'aan awgeed muu noqon mid sii socda. Eurocar oo uu nashqadeeyey Molt Taylor waxay samaysay duulimaadyo guulaystay bishii Disembar 1949. sanadii xigay noocyadan waxaa soo maray tijaabooyin isdaba joog ah iyo duulimaadyo badan. bishii Disembar 1956 ayay hay'adda duulista rayidku ogolaatay nashqadan. inkasta oo si ballaadhan loo horumariyey, haddana Molt Taylor kumuu guulaysan riyadiisii ahayd gaadhiga duulaya. Piasecki wuxuu soo saaray Skycar oo ah nooc wax laga bedelay oo loo yaqaan VZ8 oo loogu talagalay dadka rayidka ah. haddaba bartamihii 1980yadii injineerkii hore ee Boeing Fred Becker wuxuu aasaasay Flight Innovations, isagoo bilaabay horumarinta Sky Commuter oo ah VTOL aircraft. waxay ka koobnayd 14 feet 4.3 mitir, 2 rakaab ah, waxaana laga sameeyey walxo isku dhafan. sanadkii 2008 noocii ugu dambeeyey ayaa lagu iibsaday 86,000 oo giniga Australian-ka ah, iyadoo lagu kala gatay barta online-ka ah ee eBay. haddaba 2017 dhowr shirkadood ayaa soo saaray gawaadhida korontada ku shaqeeya ee duulaya, kuwaas oo loogu talagalay isticmaalkooda 2020, laakiin dib ayaa loo hakiyey cudurka COVID-19 awgii.
haddii aynu qaar ka xusno shirkadaha waa maalgelintii Toyota ee mashruuca SkyDrive, Katie Howe Corporation iyo mashruucii Flare, Volo iyo mashruuca Volocopter 2X, Airbus iyo mashruuca A3 Fahana, Hang iyo mashruuca Hang 216. shirkadahan iyo kuwo badan oo kale ayaa mar horeba tijaabooyinkii dhammaystiray mashruucan oo loogu talagalay 2020 inuu la jaan qaado waxaa dib u dhigay cudurka faafa ee COVID-19.